الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي عافي مادي برواق الله نسيو والدي والالبو إذن سلام يا ميل كست إيوا كست إني جوجنا الله نبركيو. بسم الله اللهم صل على محمد. الله أكبر. وحنا ركب إشي رجب وتكتي عاو وهبين شنية طبنكي أنك نوتهاي أيام البيت كي بالو جرا هبين مارتي إسنينا. سبحان الله وإسكبر واقو برنتي إنان ماركتي بشاسيتو إن وحون ماركتي أن ماركتي بل إن إذن كي براروجي واربي لكن سبحان الله وقتي إيجا أرضي ماركي الحمد لله إلهي برواقوين كان الله ماركتي خير يا برواقي يدن بدافي نوكدي ربي سبحانه وتعالى جل في علا جل جلاله. بسم الله اللهم صل على محمد. إن ولا ليالو بشني وبالحرمة أفرتي بلود حرمة لها إلهي سندك كدورتي أي كجرتا. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وحي جل في علا جل جلاله بلها تردود إلهي أكتيس واللبية طبن بلود سيدا كتابك إلهي كسوغن لقبل أبو مالنتي إلهي وأبور عرارك يدو الكبا بلها سنوحا كميدو يرى أفر بلود وحرمة إلهي سبحانه وتعالى أرنكاس نوحي يرى إلهي ودين تتوصن بيرى وحقه. إلهي محوير سبحانه وتعالى مركع فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفتينا هدل مننا دل مقاسيت مركع علماء كهدلايين فيهن ذا سيتو وحي أنقنا يسابع لنها إن مركي علماء مفسرين تأفسريان بلا حدن أصنت كإلهي وأبورتي inaan la isdulminin inaan dulmi la gelin inaan la dambaabin in la xaqa khayrka lagu dadaalo xumaanta laga fogaado. haddana waxay khaas ku tahay baa la dhahaa fiihinnadaasayto afarta bilood oo xurmada leh. afarta bilood waa afartee bilood waa afarta bilood oo bishan hadda rajaba ay ka mid tahay. rajab oo caawa 15 maraysa inaynu maaragtay khayrka beerano la'anna arrinkaas ah haysdulminina ونفتينا هدول مننا قفكو سين نفتي سكو دول من كرا دول مقاسيتو وحنقونيا نفتا دي حدادا عبادة دي إيا خيركي آدكو حنبارين وحمانتي آدكو حنبارتو نفتا دي وحمان إي شقيستو نفتا دي وادول مدي حداد إلهي معاسدي سي آد أولدغاغدو نفتا دي وادول مدي إي معاسدي إيا حمانتي هاسمين ويه محالينا كربا مركا وتا عكسيجادا إنينو وناقي إيا طاعدي iyo khayrkii la rabay nafta inaynu ku xambaarno inaynu ka mashquulno hawlo kaleeta aan ku mashquulno laakiin waxa la doonayaa sida layna ka raba inay nafteena khayrka aynu ku xambaarno oo khayrka iyo daacadii ilaahay aynu la nimaadno. tan kale waxay noqonaysaa inaan dadkii inaynu dulmin kuwa inoo dhow iyo kuwa ina ka fogba nafteenana dulmiga aan dulminayno waa sidaasayto inaynu nafteena wanaagii aynu ku mashquulin iyo xasanaadkii iyo ajir gurbisadii iyo ajir inay beerato oo bishani waa bishii beerashada inaynu maaragtay macaasidii iyo xumaantina aynu la nimaadno iyo inaynu dadkii kala dulmino in maaragtay oo runtii aynu ku xadgudubno addoomadii ilaahay ama cirdigoodii ama sharaftoodii ama xoolahoodii wixii la inoo diiday inaynu ku xadgudubno inaynu intaa iska ilaalino ayaa layna ka rabaa. la'anna maxaa yeelay bishan haddaa wanaag aynu samaynana wanaagii waa laynoo laabaya khayrkiisu waa badan yahay waa ka ajar badan yahay bil kale oo wanaagii aad samaysay bishan wanaagga aad samaysay uu ka ajar badan yahay waa ka khayr badan yahay. haddii maaragtay aynu xumaan samaynana hadda xumaanta horta waa ilaahay siduu yiri xumaantu waa xumaanteedii weeye xumaanta lama siyaadinayo aad samayso bishan xurmada leh laakiin way ka weyn tahay xumaantii kale oo bil kale oo aan xurmo lahayn aad samaysay tan xadgudubka aad ku xadgudubtay bil alla xurmeeyey dembigii kale wuu ka weyn yahay wuu ka duwan yahay. marka taasaa meesha ku jira marka inaynu isjirno oo maaragtay addoommada ilaahayna kuwa inoo dhow kuwa ina ka fog aynu carabkeenna iyo gacanteenna iyo lugteenna ka ceshanno xoolahooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda u ammaansiino saynu isu jirno bishan xurmada leh aynu gurbisan xumaan iyo shar aynu maaragtay runtii laynoo diiwaan gelin oo malaa'igtu aysan aynu ka qorin. ilaahay ayna xifdiya allahna ina dhowro. bismillah allahumma salli ala maxamed iyo inaynu daacada iyo wanaaga iyo ajar gurbiska inaynu ku dadaalno ilaahayna u toobad keenno maaragtay isdiyaarino ishufno isjafno
bishani waa bishii isdiyaarinta, waa bishii khayr beeridda. khayrka aynu beeraynana shacbaanu cajaa'ibteeda leh oo inoo imaan doonta ayadana rasuulkeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam. hooyo Caaisha ay tilmaantay inuu aad u soomi jiraa inuu kusoo fool leh. waxayna ka xigaba waa 14 beri baa laga yaabaa, ama maaragtay 15 beri hadday bishu 30 inoo ku dhammaatana, ama 14 beri. bismillah, allahuma salli calaa maxamed. ilaahay kuwii qaniimaysta allahayna ka dhigo. waa bilow rasuulku ku tilmaamay shacbaanna calayhi salaatu wasalaam in dad badani ay qaflad kaga jiraan, rasuulkuna uu guntiga u dhuuqsan jiray xag soon iyo xag cibaade iyo xag quraan akhrisi iyo xag sadaqaba u maaragtay runtii la waraabinayo weeye, oo bishii waraabiska weeye. wixii rajab la beertay iyo wixii sanadka dhan lasoo beerayo khayr ahaa la isu diyaar garaynayo. maaragtay bishii barakaysnayd oo ramadaanka ahayd oo la ajar gurbisanayay, bishaasna bishii maaragtay beerta la guranayay. marka allahayna ka dhigo kuwa beer khayr qabta, beerta bishan dhexda dhuuqsaday, dadaalay. allahayna ka dhigo rabbi subxaana wa tacaala. runtii waa inaynu ku dadaalno oo ka faa'iidaysano qur-aankii akhriskiisii oo nafta sii tarbiyayno. wardigeenni maaragtay qur-aan akhriskii hadday tafsiirkiisa noqon lahayd, hadday mar qiraa'adiisa noqon lahayd, hadday mar dhegaysigiisa noqon lahayd, meelahaasi wanaagsan inaynu qur-aanka ilaahay degno oo ka qaniimaysano. inaynu salaadihii faralkaa la xoojiyo oo waqtigoodii lagu dadaalo oo maaragtay tiirkoodii inoo sugnaado, iyo in maaragtay in qofkii uu sunnayaashina uu bilaabo oo ku dadaalo. hadduu tukanay sii badiyo, sii laabo salaatuleylka hadda nafta kusii tarabiyayo, ducooyinkii, cibaadaadkii, khayrkii nafta in lasii xakameeyo weeye, lagu sii bilaabo in maaragtay la toosiyo oo maaragtay la hufo oo la jafo, say ruux diyaarsan oo udgoon oo carfaysa ay u noqoto. allah inoo carfiyo, allahna inoo udgiyo biidni illaahi albaari. bismillah, allahuma salli calaa maxamed. inaynu waalidkee loo baarinimo falo, laga ducaysto kuwa maaragtay, ama ha noqoto haddii labadaadii waalid kaa hormareen, sadaqadii iyo khayrkii iyo ducadii loogu dadaalo, iyo aabtiyaashii, adeeradii, eedooyinkii, habreerihii. waalidkii wixii noolaa laga qaniimaysto, ducadii iyo khayrkii laga dalbado, la isu diyaariyo, qaraabadii la xiriiriyo, aan la goyn, loo duceeyo, kuwa adduun jooga iyo kuwa aakhiro joogaba, deriskii la xiriiriyo, ilbaabadii khayrkoo dhan, walaaltinimadii, islaamnimadii, ina ummadda sharkayeenna inu ka ceshano carabkeenna iyo gacanteenna runtii waxyaalaha ugu waaweyn. laanna rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi geed janno waa la sheegay, duuba buu yidhi, duuba waxa iskale beer jannaa lagu sheegay. waxaa lagu sheegay geed weyn oo jannada ku yaalla inuu yahay, subxaan allah, oo jirdiisu dahabtay cajaa'ib leh. maaragtay geedkaasayto waxaa iskale buu yidhi qofka gurigiisa waasacu noqdo, rasuulka calayhi salaatu wasalaam, qofka carabkiisa ummadda ka ceshta, qofka la ooya cimrigiisa wixii ka tegay, dembiyadiisa la ooya, ilaahay dembi dhaaf weydiista, yacni rabbi inuu dhaafo, inuu inta cimriga u hadhay uu xifdiyo. taas allayna ka rabaa inaynu ku mashquulno run ahaantii. ilaahayna hayna waafajiyo. bismillah, allahuma salli calaa maxamed. rabbi subxaana wa tacaala jalla fii culaa. ilaahay subxaana wa tacaala inaynu maaragtay run ahaantii dadka kale aynu caawino, inaynu maaragtay addoommada ilaahay u naxariisano, inaynu cawradooda asturno, tooda ka mashquulno, teenna ku mashquulno, teenna jafjafano, tan dadkana aynu ka jeesano, una ducayno ummadda islaamka ah, maaragtay rabbi khayrna u rajayno. ilaahay waddankeena waddanada islaamkana allah inoo islaaxiyo, allah inoo barakeeyo, inoo xifdiyo. inaynu ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu galnay in uga toobad keenno, ilaahay usoo noqono. la-anna walaalayaal inaynu ilaahay u toobad keenno waa waxa maaragtay ina gaarsiinaya inaynu khayr adduunya iyo khayr aakhiro aynu helno. la-anna ilaahay subxaana wa tacaala isagaa yiri maaragtay qofku mahmaa kaana dunuubtiisu waxay tahay, mahmaa kaana wuxuu galay, inuu qofku maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uusan ka quusan naxariistiisa, inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ogaado rabbi inuu leeyahay u naxariisanaya oo u dembi dhaafaya. laanna ilaahay subxaana wa tacaala jalla fii culaa jalla jalaaluh isaga ayaa yiri rabbi subxaana wa tacaala, faman taaba min bacdi dulmihi wa aslaxa fa ina allaha yatuubu calayh ina allaha qafuurun raxiim. ilaahay subxaana wa tacaala qofkii ilaahay u toobad keena oo u soo laabta markuu dulmi galay, dembi galay, wanaajiye wixii u haleeyey, ee acmaal saalixaa la yimaada, inuu ilaahay ka toobad aqbalayo. ilaahay baa inoo sheegaya sidaa, bal ka waran ilaahay inuu yahay mid dembiyada dhaafo naxariista. marka rabbigaasaynu haysanaa subxaana wa tacaala jalla fii culaa. marka inaynu bishan aynu maaragtay wixii aynu samaynay oo maaragtay dunuub ahaa inaynu ilaahay uga toobad keenno,
dembiyadana inaynu ilaahay inuu naga badbaadiyo inuu uga cararno rabbi subxaana wa tacaala laanna bishii cabsida yaa oo taqwada ilaahay uu yiri rabbi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii allihi rasuul rumeeyow kutiba calaykum asiyaamu waxaa laydinku waajibiyey siyaamkii kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii kuwii idinka horreeyaba loogu waajibiyey maxaa arrintaa laynooku waajibiyey maxaa bishaa barakaysan oo ramadaanka laynoo siiyey lacallakum likay tattaquun inaad ilaahay ka baqataan waka bishii cabsida waa inaynu isu diyaarino ilaahay ka baqano markii imaamu cali calayhi raxmat radiallahu tacaala canhu ardaa cali bin abi daalib radiallahu tacaala canhu ardaa markii la weydiiyey taqwadu maxay tahay cabsidu maxay tahay muxuu yiri hadalkiisa cajaa'ibta lahaa alkhawfu biljaliil allaha jaliilka in laga baqdo waalcamalu bitanziil wixii alla soo dejiyey in lagu dhaqmo oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waridaa bilqaliil waxa ilaahay ku siiyey qurux ha noqoto xoolo ha noqoto maaragtay caruur ha noqoto oday wax alla wixii ilaahay ku cilmi ha noqo wax alla wixii alla ku siiyey inaad raalli ku noqotid haba yaraadeen hadday rabaane ya inaad qanaaco in ilaahay ku siiyo cajaa'ibteeda leedahay shanigeeda subxaan allah ya wa isticdaadu liyowmi raxiil maalinta la guuranayo la raranayo gurigii aakhiro ina u wareegayna ilaa qof kasta maalintuu geeriyooda qiyaamadiisi dhacdaye maalintaa inaynu isu diyaarino marka maantii waxaa layna ka rabo waa inaynu ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam jidkaasayto aynu raacno oo rumayno oo ku dheganaano oo ilaahay hayna ku sugo rabbi subxaana wa tacaala jalla fii culaa kuwa ilaahay ku sugo allah hayna ku daro xaqa iyo khayrka u waafajiyo marka bishaan karaamaysan oo xurmada leh inaynu waxyaalaha wanaagsan aynu walaalayaalka qaniimaysano inaynu soonkii isku tarabiyeyno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam 3 beri oo maanta beri ay ugu damaysay isniinta ayaamulbiidka uu soomi jiray dhib male hadduu ku dhaafay ama maaragtay aad fasax ahayd isniinta iyo khamiista ka faa'iideyso ayaamahan kaloo soo socda ka faa'iideyso soonkii laynu ku lahay inaynu iska gudno gabdhaha haddaynu weliba dumarnahay caruuraha yareero soomanka lagu leeya ku caawino daacada ilaahay laanna intaynu isku caawinayno khayrka iyo wanaagga baraka iyo khayrka mas-uulayno xurmada ilaahay bishan xurmada leh inaynu qofka cabsida ilaahay oo qalbiga ayay ka mid tahay in xurmada iyo shacaa'irta ilaahay la weyneeyo oo maaragtay lagu dhaqmo oo la qaato aan lagu xadgudbin inagoo rabbi weyne maadaama uu bilahan xurmada leh oo bishan ay ka mid tahay rajaba uu xurmo siiyey inaynu xurmadeena ilaalino laanna waxyaalo waxa jira diinteena islaamka ama makaan ha noqoto ilaahay uu xurmeeyo in la xurmeeya ama zamaan ha noqoto waqti hadda bilahan ee 4 bilood xurmada leh oo bishan ay ka mid tahay makaan hadday noqotana mako ay ka mid tahay maaragtay masjid al-aqsa iyo dhulka maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala oo masaajidka xurmada leh uu ka ilaahay subxaana wa tacaala masjidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay dhulka xurmada leh iyo dhulkaasayto madiina oo weliba in badan uu nabigeenna calayhi salaatu u duceeyo meel xurmo leh iyadana uu ka dhig in meelahaasayto diinteenna shacaa'irta waa in la xurmeeyo oo sida masjidka maaragtay xaramka oo kaleeto xurmadiisa la siiyo يعني كسو قادو كاليتو بسم الله اللهم صل على محمد زمن هدي نقطان هذا بلاهن حرمة له أفرتن بلود أو بشان إكمي تهي إنه حرمة يدا إلالينا وشعيرت إلهي ودينت إلهي وتقوى دي كمي تهي الله كبقي كمي تهي سيدو كاليتو داد كان خلقي إلهي ندد إلهي حرمة سيئة بأجرو إلهي ويني ربي سبحانه وتعالى أي ماركتي ملائكتو كمديهين أي مي كمديهين أنبيادي أي كمديهين شهددي أي كمديهين saalixiintii ay ka mid yihiin yani dadkii waxaa ka mid ah addoommada ilaahay malaa'igtaa ku soo gelaysa laakiin addoommada ilaahay sidoo kale bini aadanka ambiyadii baa ka mid ah ilaahay xurmo siiyey ilaahay sha'nigooda weyneeyey shuhadadii baa ka mid ah saalixiintii baa ka mid ah ilaahay rabbi in marka culimadii baa ka mid ah in la xurmeeyo ilaahay rabbi subxaanada iyo kitaabka ilaahay inta xambaarsanna la xurmeeyo marka ilaahay rabbi subxaana wa tacaala hayna ka dhigo kuwa maaragtay ilaahay wuxuu xurmada siiyey kuwa xurmo siiya oo xurmeeya ilaahayna ka dhigo ilaahayna kuwa naftooda tarabiyeeya oo boosaska soonka sii dega isniintii khamiistii ka qaniimaysta ayaamul biidkii ka qaniimaysta shahru shacbaan oo soo socota dhexda u dhuuqsada ramadaanna allahayna gaarsiiyo ilaahay saalixiintii iyo salafkiina ka hormari siday ahaayeen u dhihi jireen ilaahuna gaarsii ilaahay inagana hayna gaarsiiyo in badanaan gaarin baa jidho ina ka hormartay allah u naxariisto inta inoo noolna allah inoo xifdiyo inoo dhowro kuwa ka qaniimaystana
allah ina ka dhiga marka walaalayaal biilahan bishan xurmada leh aynu iscafino isu soo ducayno khayrka ku dadaalno miro guranno nafta tarbiyayno dikriga ilaahay oo kitaabka ilaahay u horeeya yaynu marti ku noqon qur-aanka kariimka ah inaynu akhrisanno la saaxiibno saaxiibkeenna adduun iyo aakhiro allah inoo ka dhigo maaragtay walaaltinimada islaamka mooyaane la saaxiib wax lala saaxiibo kitaabka ilaahay baa u fiican oo lagu noolaado maraynu asaga akhrinayno maraynu macnihiisa dhegaysanayno tafsiirkiisa iyo maraynu maaragtay asaga aynu akhrisanayno nolosheenna aynu ku camirna khayr iyo barako badan ayaynu ka helaynaa naftayda iyo tiinaba cabsida ilaahan u dardaarmayaa cafiya caafimaad iyo barwaaqa idiin rajaynayaa intaasaan maaragtay arrintaa ka dhihlaa iyo inaynu ilaahay u toobadkeenno laanna mahmaa kaana qofku wuxuu galo yaa ayuhannaasu tuubuu ila allah waa ilaahay inaynu usoo noqono rasuulkeenna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war maalintii dadow 100 jeer riwaayad kale 70 jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiista usoo laabtaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dembigiisa kii hore iyo kii dambe la dhaafay inagu halkay joogna marka walaalayaal hurdada aynu ka kacno aynu khayrka aynu ku dadaalno ilaahayna hayna sugo allah hayna dhowro maaragtay inaynu maaragtay run ahaantii subxaan allah waxa aynu ku hadlayno carabkaas afdaboolan runtii waa dahab inaynu ka fiirsanno bismillah allahuma salli calaa maxamed qisa aan idiin soo gudbin doono runtii hadda waqtigaa igu yar maaragta khayr baa idiin rajaynaya laakiin insha allah iyadana mar baa idiin soo gudbin doonaa aan la cajabay runtii carabkaas aan iska qabano hawsha sidii rasuulku sheegay xadiiskii calayhi salaatu wasalaam xadiiskii mucaad ibnu jabal radiallahu tacaala canhu ardaa muxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma weji mise sambuuqa maxaa dadka markuu yiri macaad miyaa markuu yiri rasuulka calayhi salaatu kan iska qabo carabkii uu yiri waxa aan ku hadlayno ma naloo qabanaya inta aan daldalayno iska dhex dabaalanayno wuxuu yiri maxaa maaragtay weji iyo sambuuqa maxaa dadka naarta ugu rida ilaa carabka wax lagu sameeyo carabadooda waxay ku kasbadeen mooyaane marka walaalayaal kaasaan iska jirno ilaahay sharkiisa hana mootiyo khayrkiisana allahayna soo aadiyo maaragtay waxa weeye man kaana yuuminu billahi wal yawmil aakhir qofkii alliya rasuul rumaysan iyo maalinta dambe salawaatullaahi wasalaamu calayhi falyaqul khayran aw liyasmud way ama khayra ku alla ama haamusa saasa layna ka raba weliba ayaamahan barakaysan khayrkaasaan ku mashquulno bisha rajab oo barakaysan ilaahayna kuwii ka qaniimaysta oo khayr ka beerta oo bisha shacbaanna waraabiya ramadaankana gurta allahayna ka dhigo allahayna ina gaarsiiyo allah inoo sakhiro allah inoo fududeeyo waalidkeena iyo culimadeena iyo muslimiinta iyo muuminiinta intiina ka hormartay allah u naxariista intii noolna allah inoo barakeeyo shar iyo shaydaanna allahayna ka xijaabo warsanay wax khayr iyo war barakana allah inoo soo yeeriyo wadankeena wadanada islaamkana allah islaaxiyo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.